waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolkani Togdheer gudoomiyaha urur siyaasadeedka SST mudane Kayse waxaana kaga hortagay duleedka magaalada Burco boqolaal gawaadhi oo ay ku sharaxan yihiin calanka astaanta waa urur siyaasadeedkani SST calanka jamhuuriyadda Somaliland iyo caleemo qoyan waxaana gudoomiyaha iyo mas'uuliyiinta kale la socotay lagu soo wareejiyay laamiyada waaweyn ee magaalada Burco ugu dambeyntiina gudoomiyaha ururkani ayaa dadweynaha kala hadlay afaafka hore xafiiska ururka ee magaaladani Burco gudoomiyaha ururka SST mudane Kayse ayaa waxa uu si ballaaran ugu mahadnaqay dadweynaha reer Burco sida hagarliida ugu soo dhaweeyay gobolkani Togdheer isaga iyo mas'uuliyiinta kale ka kuwa helinaysay safarkiisani waxaa kale gudoomiye Kayse sheegay inuu ugu baaqayo dadka beeshiisa ka soo horjeeda qaranimada jamhuuriyadda Somaliland iyo jiritaankeeda in ay ka wantoobaan isla markaasina ay aqbalaan gogashi uu madaxweyne Silaayo u fudiyay sidoo kale waxa uu wax lagu farxo ku tilmaamay inay maanta jamhuuriyadda Somaliland marayso meeshii ugu wanaagsan abidi si kastaba ha ahaatee markani ayaa markii ugu horeysay gudoomiyaha ururka SST uu safar noocan oo kale ku yimaado magaaladani Burco ee xarunta gobolkani Togdheer isku soo wada duub oo xilligan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay maamulka iyo mas'uuliyiinta ururada siyaasadda jamhuuriyadda Somaliland si weyn ugu hawlan yihiin sidii ay uga gudbi lahaayeen jaranjarooyinka adag ee aadka u tirada badan isla markaasina hortaagan koridda masraxa siyaasadda qarankani Somaliland Axmed Xanad Gure Baqaye.